السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته نبتقليو نحريسي نرور ربي كوركينا حادان مدن يالي مرويين ملكستو ومقالك بالحسن آلدها برقسو انت وصلنا بان وحكسو قد بياه aadamahana eeba ku manaystay ay sahrayso soo gudbintiisa waa maalin kale oo kamida maalmaha le oo aan idin soo gudbin doono barnaamijkii la magac baxay afmaal oo hadba bulshada inteeda haldoorka hogatuska xeel dheerida hilaadinta fogna bulshada ku hogaamin karta aanu ku soo marti qaadi jirnay si ay oraahsan hufan ujeeddo durugsan iyo waana idin ku soo gudbiyaan waxa maanta barnaamijka marti ku ah Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame oo ah gudoomiyaha jaamacadda Najaax iyo maxadka daraasaadka ee Al-Faaq Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame ku soo dhaw barnaamijka aad baan idinka mahad celinaya Zakariya iyo baada barnaamijka jazakumullahu khair marka horeysa inta ayna barnaamijka u guda gelin ummad badani waxay aragtaa Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame oo ummadda wuxuu sheegayaa bal waxa isweydiin loo aan caaw ku weydiinaya Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame si uu wadadii iyo hilinkii uu maray dhalin badani ay ugu hilato bal taariikh nololeedkaaga waa kuma Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame si kooban haddaan u sheego kullay daada lama sheegay inta badan laakiin hadda waxa weeye waxa ku dhashay anigu dalka Sacuudiga markuu aaba ka baranayay masterka 1997 anoo yar baan wadankan ku soo noqonnay dhowr statenkii meelahaas waxbarashadeedii waxaan ka bilaabay dalkan ka bilaabay adigu labadii kun markay ahayd meelahaas baan u baxay waxbarasho xagga Sacuudiga ah ilaa 2013 bachelor iyo master iyo PhD ba aan Madiina ku diyaariyay 2013 bishii lixaad kowdeedii laga bilaabo ilaa maantana burcaan ka howlgalaa oo burcaan degan insha Allah taala waxaynu ka dhawaajinay inaad tahay gudoomiyaha maxadka daraasaadka ee Al-Faaq sida magaciisa ka muuqatana waa maxad daraasaad ama aynu ka dhawaajinay bal waxaad warbixin naga siisaa bulshadana aad bal tafaasiil ka siisaa maxadkan iyo shaqada uu qabto sababta kugu kaliftay inaad asaasto waa xarun aan ugu talagalay kulli cilmi baaris aan ugu talagalay maktabad bataala fiican oo علمت إسلامية ولو علوم كلا أنا لا صعون لكن علمت إسلامية قيمة هذا كلا دوان يكون انتهاي قرشه هي هاي إن وحوي دائر تامر اللي يرده إن لحوتشيو مستواه هذا وحبرشه متونتا يا كتبتا كلا دوان لحفظ سيو إلا الصمايو قرال يا كتب كترجمة يسا بلشدة باهيدة كترجميسا dadka hadda diinta baranaya mantiqadeenan ama gobolkeenan waxyaabahan isleeyahay oo u baahan yihiin in waxa weeye cilmi baaris lagu sameeyo in cilmi baaris lagu sameeyo taariikhda dacwadu leedahay islaamku leeyahay taariikhda dalku leeyahay waxyaabo badan oo noocaasa guulo badan oo gaarnay Ilaahay mahadi hawlo qacanta lagu hayana oo dhawaan insha Allah taala la arki doonana waa jiraan insha Allah taala Dr. Xasan isbedel badan baa dhacay oo waliba ka dhacay xagga dhaqanka kuwaas oo ay saameyn ku yeelatay aaladahan gaar ahaan social media oo dhaqamadii dibadda ayaa dalka aad u soo galay sidee baad aaminsan tahay in arintaas laga gudbi karo ama sidee xal loogu heli karaa kulli caalamka dawla herdimaya Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay islaamka iyo gaaladu inay ka dhaxayso cadaawad soo jireen waxa Allah subhanahu wa ta'ala inoo sheegay gaaladu inay jeclaysanayaan dadka muslimiinta inay gaaloobaan waddu law takfuruna kama kafaru gaaladu waxay jeclaysanayaan inaad gaalowdaan oo diintooda qaadataan على الأقل دينتي إسلام كهذا حق هذا كذا كساران أما على الأقل إن يدقن كذا كفوجيان يما بدي ذي تعليم تذا وحشرة هذا سنوكسون عالم كا أود وحيس كلا قالوا تدقالتاي تحق عيدا كتاي هذا أقون تاي مادية استراتيجية دايو قرشين تايو وحي كصاب سنودن أدبا لوردا في عالم الإسلامي ميديا هدي أي تاي dhinacii loo dhaqaaqaba waxa weeye waxaad moodaa gaaladu wixii adduunyada ku saabsanaa inay aad uga hormareen awooddaas waxay keentay ninka awoodda leh
ayaa taliya dhaqankiisuna fula. Dr. Xasan Shaqaale Warsame anoo mar labaad ka qaybgalka barnaamijka kaaga mahad celinaya dhibaatooyin badan bay bulshadu la nooshahay oo ay ka mid tahay qabyaaladda qaadka tahriibka iyo waxyaabo la mid ah aqoon-yahanka iyo haldoorka bulshadana waad ka mid tahay sidee baad is leedahay waa looga bixi karaa ama qaabkee baad is leedahay xal baa loogu heli karaa wallahi saad u sheegtay Zakariya dhibaatooyinka ina haysta aad bay u badan yihiin dhibaatooyinkuna isku xidhay oo markay mesela dhalinyarada camal la'aan ku dhacdo inay u dhaganugulnaadaan balwadii waxa weeye waa wax iska dabiiciya weey aniga waxay la tahay dhowr shay hadaynu ku dadaalno in dhibaatooyinkaas horta lama dhamayn karo oo in sidaynu doonayno bulshada la gaarsiiyo muddo dhow taas waqti bay qaadanaysaa sunnada allana waxay ku daratay sharka iyo khayrka la isku celiyo marna khayr la isugu bixi maayo laakiin guushu waa in khayrkuna bato sharkuna yaraado maanta aniga waxay la tahay bulshadu inta xilkaska ah ama dhalinyaro ha noqoto ama odayaal ha noqoto ama madax dhaqameed ha noqoto aqoon-yahanka ha noqoto dadka damiir kale aqoonta leh wax fahmaya garaad kale damqanaya dhibka dareemaya dadka noocaas baa horta kala jeeda kuwaas haday midoobaan haday qooda caafimaad ka tahay bahda saxaafadda haday tahay culimada iyo ducaada hadii ay tahay madax dhaqameedka hadii ay tahay mas'uuliyiinta hadii ay tahay aqoon-yahanka goobaha waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada kuwa haya hadii ay tahay dadka muhiimka ee kaalinta bulshada ugu jira dadkaas intay isu yimaadaan aafooyinka iyo mushkilada halkay dadka uga imanayaan iyo halka ay ka faafayaan iyo sida ay u socoto iyo sida looga hortagayo baaritaan in lagu sameeyo oo horta cilmi baaris cilmiyeysan oo waxa weeye ku qotama qawaacida iyo dhidibada cilmi baarista horta in la helo waayo ma suurtoobayso iyada ummadii abwaab sharci ay ku furan tahay in la yiraahdo waxa weeye dhinac kale wax laga hagaajinaya ma soconayso marka aniga waxay la tahay horta dadka in la isku xidho dhinac loo soo wada jeesto dhibka dadka la dareensiiyo wacyigelin dhammaystiran in la sameeyo qadiyadaas waa koow qadiyada labaad in waxa weeye danta guud tacab la geliyo iyo waqti iyaduna waa laga maarmaan maanta qof waliba tiisa gaarka haduu ku mashquulo ummadda hoos bay u sii soconaysaa laakiin qofku isagoo tiisa gaarka daryeelay danta guudna inuu wax ku darsado ama waqti ha geliyo ama dhaqaale ha geliyo ama fikir ha geliyo aniga waxay la tahay tan noocaas meel baa lagu gaaraya isbedel waa lagu keenaya hadda labada qodob baan si gaar ah u tilmaamaya dhibka in la dareemo cilmi baaris laga sameeyo dadka lagu wacyigeliyo iyo in la isu kaashado sidii mashaakilka looga gudbi lahaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan qabaa marxaladda koowaad ama furaha koowaad ee dawadu inuu ka yahay insha Allah taala ayaan ila tahay dhinaca diinta marka aynu digtoore u soo weecanno ummadda Soomaaliyeed 100% waa islaam waana sunni dhibaatooyin fara badan iyo carqalado fara badan ba hadda jira waxyaabo badanna waa lagu dhex faafinayaa adna bulshada cidda haldoorka ah ayaad ka mid tahay dadka ugu isha dheer dhanka diintana waa tahay oo wax badan oo bulshada aan u muuqanin ay u muuqdaan bal maxay tahay fariintaada wacyigelineed ee aad bulshada u dirayso kullay waxaan u malaynayaa dhibka ugu weyn wuxuu ka imanayaa dadkii oo aan diintiina bartaan diyaar u ahayn oo aad looga mashquulsan yahay duruufta dhaqaale la hirdimayo iyo waxa laga yaabaa fursado ay wax ku bartaan oo fudud inaanay dadku waxa weeye helin aniga waxay la tahay maanta dhaqaale xumada iyo siyaasad xumada iyo mashaakilkan badan aynu ka cabanayno waxa dhammaan asaas u ah in badan oo dadkeena ka mid diintoodina jahli kaga sugan yihiin ilaahay baa ina abuurtay waxa ina dhibaya iyo waxa dheeftay noo soo jiidaya labadaba ilaahay baa inaga xoogaasan ilaahna sharcigiisu noogu cadiyay marka mowduucaas dadku inay diinta bartaan oo ubadka lagu tababaro lagu layliyo
waa qadiyad waxa weeye aad iyo aad loogu baahaya culimadii hore sida imaam axmed ibn xambal oo kale hadalladii dhaxalgalka ay laga hayo waxaa ka mid ahaa dadku diinta inay bartaan waxay uga baahi badan yihiin cuntada iyo cabidda waayo qofku hadduu cunto la'aan ku dhacdo cabitaan la'aan ay ku dhacdo waxa ugu badan ee ku imanaya waa inuu tiis u timaado oo gaajo u dhinto laakiin hadduu diin waayo dee mustaqbalkiisa aakhiro dhan baa baaba'aya marka baahida diinta loo qabo waa mid aad u weyn welibana xilligan dambe ee fitnooyinku badan yihiin ee dad badan oo cadow ah oo diintii la dagaalamaya iyo dad inaga dhashay oo dadkeenna ah laakiin afkaartoodu isbedeshay oo maanta dee ilaahay shaki gelinaya jiritaankiisa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa shaki gelinaya saxaabadii nebiga diintana soo gaadhsiiyey gaalaysiinaya ama lacnadaya afkaarta noocaasoo kale ah oo maanta aad u faafsan oo xitaa af soomaali lagu faafinayo miidiyaha iyo baraha bulshada ka buuxa maanta dee waxaa lagaga hortagayaa qof waliba waa inuu diintiisa sees fiican uu haysto hadday tahay xaggii caqiidada iyo fikirka haddii ay tahay xaggii dhaqangelinta iyo axkaamtii haddii ay tahay xaggii aadaabtii iyo akhlaaqdii waxyaabahaasoo dhan tallaal in ubadka iyo waalidka iyo dumarka iyo dhallinyaradaba lagu tallaalo waxay la tahay mid laga maarmaana weeye mas-uuliyaddana in laysa saaro waalid iyo mas-uulba waa muhim weyn dhul badan baad martay africa iyo ashiyaba dhul badan baad martay safaradaadii aad dhulka ku martay iyo kuwana dalka ku timiba safaradii aad dabadda ku martay maxaa kaaga soo baxay wallahi waxaan oran karaa kulli aad waxaan ugu noqnoqday Malaysia iyo Singapore waa tagay waa dunida horumartay oo tagtay dad muslimiin ah ku nool khaasatan Malaysia oo dad muslim gaala haba joogto waxa iga soo baxday dadkaasi inay yihiin dad tashtay yani waxa dadku ku kala tageen waa in dadku isu tashto noloshiisa uu maaraysto mustaqbalkiisa dhiso waan arkayo inagama maskax badna inagama aktifsana inagama dadaal badna bal markaad eegto Soomaalida ba ka maskax badan ninka shaqo ku fiican hadaad weydiiso ninka ku xiga magaciisa inaan aqoon ba laga yaaba hadaad weydiiso guriga ku xiga magaciisa inaanu garan ba laga yaaba inaguna inanka yara malcamada ku socda magaalada ba yaqaana shan jirka ba laga yaaba inuu meeshu maraba boorka iyo gaariga iyo wax walba u hayo ficlan dad aad u maskax badan baan laakiin waxaad moodaa maskaxdeeni inagu inaynan horumar u adeegsan aynu u adeegsanay dibdhac aynu u adeegsanay iyo qof waliba qof inuu iska eego qof waliba qof inuu riixayo taasa dibdhac aynu ku keentay dadkaasi waxa kaliya aan ku tusaaleyn karaa iyagoo ah dad iska qabow oo masaakiina oo busata ah oo aad isaga fudfudud inay haddana yihiin dad hadaf iyo yool leh noloshooda inay hagaajiyaan iyo mustaqbalkooda taasay ku tashteen meel la waa gaadheen dadka culimada dhaliila inta badan waxay yiraahdaan culimadu maxay dadka u sheegtaa iyagii baaba khilaafaad badan ka dhex jiraayo nin waliba masaajidkiisa dee ku xariisan yahay oo kitaabkiisa ku haysta ama shiikha kale ee ku dhow radinaya adigu doctor Xasan ahaan arintaas maxaa kaaga muuqda horta qadiyadaas waxna way jiraan waaqica keenay nabiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam in dadku ay iskhilaafayaan waa dabiici weey ilaahay wuxuu leeyahay wala yazaluna mukhtalifiin illa man rahima rabbuk dadku ka zuuli maayaan inay iskhilaafayaan cidii waa Allah subhanahu wa ta'ala u naxariistay mooyaan khilaafkuna wax wanaagsan ma aha laakiin waa wax ilaahay bini aadamka ku dabiiciyay ilaahay uu ku abuuray anigu waxaan u kala qaybinayaa dadka culimada iskhilaafayana kelmad baan oranaya dadka aan culimada ahayn iyagu dibadda ka daawanayana kelmad baan leeyahay culimada waxaan u soo jeedinayaa ama dadka diinta ku hawlan waxa jira mar walba wax la isku waafaqsan yahay inta la isku waafaqsan yahay xoogga in la saaro intaas badan oo maanta nin waliba hadduu eego ka ugu dhow waxay ku kala tagsan yihiin hadduu xoogga saaro way kala fogaanayaan laakiin qof waliba hadduu daneeyo maanta mashaakilka ummadda u taalla iyo islaamnimadaas dadka in lagu mideeyo maanta meel fiican baa la imanaya maanta waxa la helayaa midda taagan ba ilaahay ka dooday jiritaankiisa waxa la helayaa mid maanta Nabi Maxamed ka dooday calayhi salaatu wasalaam mid waxa la helayaa maanta diimahaba ka dooday
iska dhaaftay islaam ba waxa weeye la helay marka horta waxyaabaha waaqica marka la ogaado qofku wuxuu ogaanaya dadku intay u kala jiraan marka wadaadada iyo culimada iyaga waxaan u soo jeedinayaa maanta marxaladda la nool yahay waa inaad ogaataa dadku say ku kala xigaan maanta ama tabliiqi ha noqdo ama ictisaam ha noqdo ama salafi ha noqdo ama xitaa suufi ha noqdo maanta qofka maanta islaamnimo iyo diinnimo wada horta maanta dad badan oo ilxaad iyo gaalnimo wada inuu kaa xigo ogsoonow isku faran inaad tihiinna waa inaad ogaataa markaad hoos ula soo dhaadhacdaanna waxa la isugu imanayaa inuu noqdo kitaabka iyo sunnada in kitaabka iyo sunnadaas marjic laga dhigto waayo waxyaabaha qaar waa lama taabtaan wey kitaabka alle sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam in yaga laga dabqaato iyaga loo noqdo waa waxaan filaya wax badan inay soo dhaweynayso ama bulshada anigu waxaan u arkaa hadalkaa ku soo celcelinaya waa dad doonaya inay fara muruxsadaan waayo qofka khayr doonaya diinteennu waxay ku leedahay sida alla uu inoo sheegayo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaadan aqoon lahayn dadka diinta yaqaana wax weydii maanta adiga waxa ku saaran meesha aad joogto cidda aad isleedahay uu ugu mudan yahay cilmi ahaan dhaqan ahaan diin ahaan dadaal ahaan markuu hadlayo hadalkiisu aad isleedahay daacadnima ka muuqata ama hadal munaasiba weeye inaad ka faa'iidaysato ayaa adiga ku saaran laakiin wax allaale wixii diin wadaba waxaan uga tagayaa way sahayaanoo idinku soo kala bax sida islaan laga sheegay idin kala garan mayne wada guulaysta tan noocaasa mid laga aqbalaya ma khaasatan waan dareemaya dadka hadallada noocaasoo kale odhanaya waa dad laga yaabo inay heer jaamacadeed gaadheen ama dee secondary ay dhammeeyeen hadday ugu hooseeyaan dad wax akhriya wax dhegaysta wax fahmi kara weeye marka waxaan cudurdaar ma haystaan inay culimada ku dhaliilaan iyagii baa qaybsan iyagu ha soo heshiiyaan sax ma adigu kaalinta diinta alle kugu aadan inaad ka soo baxdo maxaa kaa xigay diinta inaad barto oo adiguna dhinacaaga taladaada aad ka dhiibato diinta alle aad ka difaacdo waxba cidi kuma diidana diinta allena waa furan tahay sidii maaha baryihii hore gaaladu la kala dhexli jiray maaha maanta waxaa kaa xigta inaad kuliyad shareeca jaamacad islaamiya gasho ama maxad inaad gasho ama dee duruustaas mobilada lagu sitay iyo miidiyaha ka buuxda inaad ka faa'iidaysato ama inaad kutubtii akhrisato ama culimada inaad u tagto masaajidada wax ku dhigaysa ama inaad telefoonka ka weydiiso ood la xidhiidho iyo wixii la mida markaan waxaan ku talinayaa taasi marnaba suuragal ma aha laakiin khilaafkuna wax la ogolaan kara maaha laakiin ilaahay baa inagu dabeeceeyey waa in lala noolaado lala jaan qaado la xakameeyo meel la isugu yimaado taargad la wada yeesho wixii la isku waafaqsan yahayna laga wada shaqeeyo taasaynu dhibka khilaafka lagu yarayn karaa laakiin ma suurtoobayso ummadda kala duwan maanku waa mudacyaal leeyahay inaad hal masjid ku soo xarayso iyo hal goob dadka la isugu wada keeno ama hal fikir mid suurta galaysa maaha laakiin lala noolaado dadkuna fahmaan waa mid aad iyo aad muhiim baryihii u dambeeyay hoos u dhac ballaaran baa ku dhacay goobaha diinta laga barto maxaad is leedahay sabab bay u noqotay arrintaas wallaahi waa sababta koowaad horta nabigu waa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xilliba xilligu ka dambeeya aakhiru zamaanka jaahilnimada diinta lagaga sugaya waa sii badanaysa cilmiguna waa sii yaraanaya wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ina min ashraati الsaaca an yurfaca alcilm wayahbut aljahl calaamadaha qiyaamaha waxaa ka mida jahligu inuu degayo jahligu inuu xididaysanayo cilmigana la koryeelayo nebigaa inoo caddeeya cilmiga qaabka loo koryeelayo waxaa lagu koryeelaya dadkii cilmiga hayay baa yaraanaya dadka dambe soo kacayaana baran maayaan horta waxaad moodaa la socdaa akhiru zamaankii baa loo sii socdaa mar haddaad aragto diintiioo barashadeedu sii yaraanayso dadkii hore yaqaanayna waa sii yaraanayaan waa dhimanaya kuwa cusub ee ka xambaari lahaana waa kuwaa sii yaraanaya marka horta akhiru zamaan inaynu ku jirno calaamad bay u tahay qadiyadda labaad dadkii waxaa ka qaalib noqotay adduunyo maxaan cunaa maxaan cabbaa maxaan ka haystaa maxaan halkaan seexdaa taasi markay maskaxda degtana waxay yaraynaysaa diintii oo dadku isleeyihiin
adduunyo lagu heli maayo ama nolol lagu heli maayo iyo wixii la mid ah diintuna way ka weyntaa wax nolol laga raadiyo maanta wax la barta diinta ugu jaban kutub la iibiyo kutubta diinta ugu jaban sababtu waa maxay waa sunna Allah subhanahu wa ta'ala maanta faatixada haday qaali kugu noqon lahayd oo la oran lahaa faatixada aad ku tukanayso $50 baad ku dhiganaysaa dhibaato badan baa dhici lahayd laakiin faatixadu waa bilaash quraanki waa bilaash laakiin hadda salaado waxyaabo kala baro kitaabka ka hadlaya maalan nin noloshi ama taariikh ka hadlaya ama nin gaali uu kaga hadlayo noloshiis waxa laga yaabaa $50 $100 in la siisto mushafka quraankaana $3 baa la siiyaa ama $2 waa nicmo Allah subhanahu wa ta'ala ma aha yasid ma ah waa baahida loo qaba awgeed boo Allah subhanahu wa ta'ala sida uu fududay marka waxaan leenahay sababta kulli waxa ka ah aakhir zamaanka la jooga waa sababta labaad adduunyadii oo dadka ka qaalib noqotay iyaduna waa sabab waxa kale laga yaabaa sababaha inay ka mid tahay in dadkii diinta fidinaya lafteedu qaabab badan oo dadka ay ku soo jiitaan iyadana inaan waxa weeye la helin iyadana waxaan u maleynayaa inay qaab tahay gaabiska hadayna wada haystaana kulli koobu ka insha Allah ta'ala دكتور حسن شقالي ورسمه كدكتور حسن شقالي ورسمه أهان سيدي بعد أن سنتهاي اللغة هرمري كانوا والله قضب با كل يعني يقول مهم سن قضب هرتوا مد جودو ومد مسلمين ونهاي شرعي الله سبحانه وتعالى ينوسو دشيء يدقن كي إسلام كهاي السوتشرين كينو أها ومفتاحها وحويه هرمركي النووي تاوا إن عدول بكرنا دعوة ما أنت نيك الدون يا إنه مدن horumarkeeda ka raadiya dhaqan reer galbeed isku dhac iyo isqabsi iyo hirdan baa ka dhalanaya laakiin takriya umadu ay isku waafaqsan tahay waa dhaqanka soo jireenka ay leedahay in loo ilaaliyo taas waa qodobka labaad muwaafaqad dadka laga helo dadka dhinac loo wada jiheeyo in dadka lagu abuuro wadaniyad wadankiisa inuu jeclaado dadka lagu abuuro danta guud in laga wada shaqeeyo in dadka la fahansiiyo waxa bulsho hoos u dhigi kara bulshada kor u qaadi kara maanta waxyaabaha ka noqon kara waxa kamid ah qabyaalada laga hor yimaado oo waxa weeye qabiil lama baabin karo laakiin qabyaalada lagu dhaqmayo oo wax la baabin karo in laga takhaluso oo ummadu ay ummad midan noqoto sidoo Allah u doortay waa qodobka koowaad ee horumarka keena talabaadna hadaf iyo loo sameeyo meel la tiigsanayo waxa weeye in loo sameeyo waxa kale ka muhiima cadaaladda lagu dadaalo oo qof waliba halka uu joogo maayar ha noqoto barasaab ha noqoto madaxweyne ha noqoto wasiir ha noqoto maamulo iskuul ha noqdo maamulo jaamacadeed ha noqoto qof waliba halka uu joogo bulshadiisa cadaalad inuu ku dhaqo iyaduna waa miftaax iyo asaas waxa weeye horumarka lagu gaaro waxay la tahay qodobada hadii aynu xoog saarno isbedel weyn inuu bulshada ku imanayo albaabkii horumarkana inay gaari doonaan kulli horumarku daa aqoon la'aan waxa weeye ma imanayo aqoontii la tayeeyo iyaduna waa qodob muhiim ah oo maanta waxyaabaha ugu badan ee lagu kala tagay dunida horumarta hada taariikhdooda baadho waxa weeye qolo waliba waxay ka bilaabeen tacliintii la tayeeyay oo dadkii 20 sano dalka u soo bixi lahaa heerkii la doonayay inay gaaraan in la gaarsiiyo iyaduna waa qodob muhiim ah weey maanta waxa weeye meelaha aynu ku liidanay kamid tahay in aqoontii ama tayadii ay quality-geedu aad iyo aad u hooseeyo oo aad moodo kii jaacada ka soo baxay iyo kii aan tacliin baran inaan wax badan isku dhaamin hadaan qofku dadaal badan aan waxa weeye sameeyo fariintaada aqoon yahanimo bulshada iyo dawladaba aad u diraysaa maxay tahay wallahi talada ugu muhiimsan ee aan waxa weeye ku talinaya number 1 ummad muslima inahay 100% walibana waxa la inagu tariyaa islaamku markuu ka tagay Makka intaanu Madiina gaarin buu mandiqadeena soo gaaray soo jireen banu islaamnimada u leena islaamnimadu waa mid ina xushan weey in horta aynu ku fara adeegna diinteenaas iyo islaamnimadeenaas iyo dhaqankeenaas soo jireenkee ku qotoma
diinteenna islaamka. intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka afmaal oo marti ku ahaa Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame. inta aynu barnaamij la mid ah ku kulmi doono waa anigoo Sakariya iyo bahda kale ee barnaamijka igala qayb qaadatay oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.